قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهرين waxaan isleeyahay waqtigu intan uu ka dheeraan doonaa marka waa iska fadhii doontaan ilaa caawa baylatay waayo waxaan joogaa hadda argumentkii koowaad weli first argument oo ah dunidu weligeed way soo jirtay iyo ma soo jirina way bilaabantay waxaan isku dayi doonaa laakiin se inaan kookoobo markii la caddeeyey kadib inay dunidu bilaabantay waxaa la caddeeyey markaa waxa weeyaan alxaaditha aluula ama first event dhacdadii ugu horreysay dunida la arko oo la leeyahay kownkani saasuu u samaysmay laakiin weli kamaynan hadal first cause-kii maxaa sababay caddayntan kadib waxaynu inagu leenahay qadiyadii theologiga ahayd ama philosophiga ahayd ee ku saabsiisnayd burhaanul iijaadka ay keensadaan oo haddaan si kaloo ka fudud u dhigo sidii philosophiga ahayd waxay yidhahdaan bini aadamku wuxuu isku waafaqsan yahay kow alcadamu laa yakhluq nothingness inaan wax abuurin socankaa maaha nothingness wax la-aan cadam mutlaqa meelaan waxba jirin inaanay wax abuurmin bini aadamku taasi waa masalo uu ogol yahay waxa kaloo bini aadamku ogol yahay bay leeyihin alficlu mir'aatun lifaacilih sancada ama ficilka waxay muraayad u tahay ciddii samaysay maxaynu uga jeednaa waxay leeyihin sanco kasta wax kasta oo cidi samaysay waxaad ka dhex akhriyi kartaa cidda samaysay sifaadkiisa wax ka mid ah maalan hadda waxay hor yaalaan microphone-kan in la sameeyey waan garanayaa waayo iskama samaysmin haddii la yidhaahdo ciddii samaysay ka warra ciddii samaysay ma garanayo laakiin waxaan garan karaa sifaadkiisa wax ka mid ah waxaan garanayaa kow inuu caag haystay waxaan garanayaa inuu bir haystay waxaan garanayaa inuu aqoon u lahaa saa birta loo laalaabay waxaan loo sameeyo waxaan garan karaa inuu wax ka yaqaanay soundka iyo sida codka loo gudbiyo waxaan garanayaa inuu lightka wax ka yaqaano waxaan electricity ku shaqaynayaa waxaan garanayaa sancadaa markaan u fiirsado waxa ay tilmaamaysaa wax ka mid ah sifaadkii qofkii lahaa computerka ay hor yaalla waxaan garan karaa ciddii computerkan samaysatay ee samaysay kow inay caagagan iyo birahan iyo waxaan haysay waxaan garan karaa inay electronicska wax ka taqaanay waxaan garan karaa programmingka inay wax ka taqaanay waxaan garan karaa lightka inay wax ka yaqaaneen waxaan garan karaa visualizationka aragtida iyo qaabkan wax loo arkayo waxa kan la arkaya noociyo inay wax ka yaqaaneen waxaan garan karaa waxaasoo dhan waxa ii sheegay iimay sheegin kambanigan baalka ka soo iibsaday waxa ii sheegay computerkan markaan u fiirsaday ayuu ka soo baxay waxaan leenahay first eventkii waan garanay dunidan inay mar bilaabanto aanay weligeed soo jirin laakiin markaan dunida u fiirsanno waxaan ka dhex arki karnaa cidda samaysay inay cid khabiiratay oo caliimatay oo qadiirtay oo muriid tahay soo maydan ka maqli jirin culamaa ilkalaam asifaat sabca sifaadka toddobada ah ee cilmiga qudrada iraadada sifaadkaasi waxa laga dhex arki karaa sancadiisa qof kasta cid kasta sancadeeda laga dhex arki karaa waayo waxaan leenahay faaqidu shay laa yucطii cid aan cilmiba lahayni cilmin kuma siin karto aan caynka ahayn cid aan engineerinka waxba ka aqooni wax engineeringa kama iman karaan design kama iman karo cid aan waxba ka aqoon yani faaqidu shay laa yucطi alqaacida thalitha markaa weeyaan yani maadaama aan garanay cadamku wax ma abuuro nothingness waxba ma abuurto ciddaan wax haysani wax ma bixin karto waxaanad adiguba ahayn ma samayn kartid adoon engineer ahayn engineer ma samayn kartid adoon tabiib ahayn wax ma dawo yani waa inaad aqoontaa leeday
haddaad faaqitay ma samayn kartid ka saddexaadna waxaan leeyahay ficil kastoo aynu aragnaa waa mir'atun can faacilih haddaba nimankii ahaa mulxidiinta ee qadiyaddan ku doodayey waxay u arkayaan philosophically istintaajkani ama deductionkan la sameeyo deduction macquula yahay cilmiyan iyo philosophically laakiin waxaan rabaa markaa imika inaan soo qadimo alictiraadaat walajwaba oo ah adiladaynu sheegnay maxay iyagu ku caarideen maxaase lagaga jawaabay adilada aynu sheegnay natiijadu waa natiijo macquul ah haddaba natiijada waxaynu sheegnay laba premises iyo conclusion ka dhalanaya waxay isku dayeen conclusionkani waa logic wax la dafiri kara maaha labada premises inay weeraraan markaasi premiseskooda koowaad wuxuu ahaa kownkani inuu maxay yahay qadiim yahay waxaynu caddaynay inuu yahay xaadith inuu yahay eternity inaanu jirin aanu azali ahayn inuu soo dariyey waxa laaliya wixii qabay baynu leenahay fikradda qidam ulcaalam iyaga sayniska u run sheegay afar daliil oo physics aynu sheegnay oo big bang theory midiyey mid red shift yahay izaaxa alxamraa mid microwave ka uu yahay ka afraadna uu yahay expansionka afartaas shay aynu idhaa afartuba ugu yaraan waa modelka hadda la rumaysan yahay waxay beeninayaan inaanay dunidani weligeed soo jirin halkaa waxaa ku dhammaaday fikraddii aristotele sheegaysay qidam ulcaalam iyo xataa falaasafada muslimiinta kuwii ku raacay ibnu sina iyo farabi iyo ibnu rushdi iyo albaaji iyo groupkaasoo dhami waxay raaceen qidam ulcaalam khaaliqa way ogolyiin waa masale adag inaad isla fahamto labadaasi laakiin qidam ulcaalamna way haystaan waxaasoo dhan fikradoodu been bay noqotay qoladii kasoo horjeeday markaa maxay ku jawaabeen jawaabuhu waa kala gedisan yihin maalan Sir Arthur Madagas waa nin fiisiista kimista aqoomahan sciences fieldskoo dhan ay yidhaahdaan aqoon buu u lahaa waa oday ingiriis ah oo qoladii seerka la siiyey markii dambena ka mid ah oo jariidadan malaaxidadu inta badan wax ku qorto Niger la yidhaahdo ayuu 22 sano filayaa buu general editorkeed muxararkeeda ahaa 22 sano ayaa markii fikraddan la soo bandhigay ayuu wuxuu ku jawaabay waa fikra baqiida buu yidhi anigu ma aqbalaya buu yidhi in la yidhaahdo dunida tani mar bay bilaabantay dabeetana waxaa la yidhi waayo Sir Madagasow maxaad u aqbali weyday waayo buu yidhi waxay daliil u noqonaysaa kuwii ilaahay rumaysnaa buu yidhi science baa laga warramayay qadiyadda waxayd qadiya cilmiya inuu daliilkiisa cilmigaa keeno laakiin wuxuu leeyahay anigu aqbali maayo sababtaan u aqbalayna waa maxay waxay daliilu tahay buu yidhi waa xujiyatun lira'yi almutadayiniin buu leeyahy xujo waxay u tahay daliil bay u noqotay qolada mutadayiniinta ah waxaa la mid ah Sir Arthur Eddington isna waa seer kaloo ingiriis ah isna wuxuu leeyahay inkastoo bahasha aqbalkeedu uu baqiid yahay buu wax la aqbali kara aan ahayn haddana de hadduu cilmigii sugay wax kaloo la yeelo la garan maayo buu isagu yidhi Sir Anthony Flew waa seer kale isna physics intuba waa physics yahana seerara boqoradu ay seerka siisay Sir Anthony Flew waa ninkaynu lahayn waa ashhar mulxid fi alcaalam fi alqarn al-20 ee ingiriiska ahaa Anthony Flew buuggiisan markuu qoray u dambeeyey ee uu leeyahay there is a God ilaah baa jira uu leeyahay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa jaraa'idku waxay qorayaan the most notorious atheist ayaa ilaahay qoray baa jaraa'idka cinwaan looga dhigay markuu odaygu buuggiisa tan qoray ayuu wuxuu leeyahay al-i'tiraaf buu yidhi waa wax nafta u fiican haatan inaan iska ictiraafa buu leeyahay in ilaah jiro oo adduunku uu bilaabmay waxay tahay buu leeyahay wax naftu ay ku degi karayso Alexander Valinkan ninka la yidhaahdo ka mid ah culamada physics-ka uga caansan caalamka maanta isaguna wuxuu leeyahay scientists can no longer hide behind a vast eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of cosmic beginning buu leeyahay meeshaynu ku dhuuman jirnay buu yidhi haddaynu saynis yahananahay
ha dunidu weligeed bay soo jirtay godkaa waa la iska saaray buu leeyahy saynisyahan dambe halkaa ku dhuuman karaana ma jira buu leeyahy waa inaynu waajahnaa dunidu way bilaabantay yaa bilaabay su-aasha ah buu leeyahy waa inaynu si cad u waajahnaa walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay aslan qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qaar daliil kasta hadday arkaan waa in yarow kulla aayatin wax kastoo aayada hadday arkaan qaar diidayaa ilaahay tilmaamay walidaalik iraadat lilxaad cidi uma taakayso iraadat lilxaad qofku hadduu isagoo ilxaadka doonayo let him go ha raaco laakiin qaar baa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka hadday arkaan aayad kasta waa mucridiin waa ka jeesanayaan oo wax haba yaraatee ay aqbalayaan iyaga ma jirta baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala kuwaas iyagay danahoodatay laakiin waxa aan rabaa god kastoo ay galaan in laga saaro adilo cilmiya inaanay haysanin markaa ninkii doonaya mulxid ha ahaado ninkii doonaya sidaa sermadogas ha yidhaahdo anigu ma rabo inaan rumeeyo weliba wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in big bandka la buriye buu yidhi intuu yidhi erayga kadibna 2 goor baa lagu qaatay Nobel Prize sugistaankiisa intuu isagu weedhaa yidhi 2 gooroo ka dambeysay baa Nobel Prize lagu qaatay qadiyadda tan sugitaankeeda xaggay u kaceen marka waxay yidhahdeen kownkani universe inuu bidaayo leeyahay waanu qiray haye laakiin in cidi abuurtay uma baahna wuu bilaabmay laakiin cidi may abuurin oo soo noqonaya markaa dunidu way bilaabantay cidise ma abuurin waxay bilaabeen markaa nadariyaad fisigisa horta aan idiin sheego sayniska marka la joogo siiba fisikisku dee horta waa cilmiga dambe ay sheegaan waa ummigiisa waa hooyadeed waayo fisikisku chemistry ka dhasha chemistrygu biology ka dhasha all this science haddaad maqasho bay yidhaahdaan waa hooyada cilmigu bay yidhahdaan waa fisikiska fisikisyahanadu waxay leeyihin waxa la yidhaha theoretical physics qola riyota bay leeyihin oo theory dejisa waxaasi saasay noqon karaa modelka ay markaa dunida ka rumaysan yihiin waa in wax kasta oo dhici kara ay waafajiyaan saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya kadibna waxay leeyihin calculations xisaabeed oo la isku daro xisaabtana wixii la doonaa lagu rumayn karaa waxa hadduu calculation yahay Hawking odaygan yare dhinaca qalalan leh imika saynisyahanadaba ugu caansan physics-ka Ingiriis aynu idhi Sir Isaac Newton kursigiisu fadhiyi jiray Cambridge University Stephen Hawking the grand bookisa markuu qorayay wuxuu qoray calculation buu sameeyey oo qaatay waxay yidhaahdaan الرقم التخيلي imaginary numberska waxay yidhaahdaan imaginary numbersku waa number aan jirin لكن mathematically la isticmaali karo مثلا -4 square root ma jiro -4 haddaad square root geliso waxba kama soo baxaya asan imaginable asanagas inta loo qaataaba dabeetana calculation la sameeya ama ay bay inta badan qaataan dabeetana calculation baa la sameeya calculationkii siduu waday ayuu wuxuu leeyahay inay iska bilaabantay dunidu baa ka dhex cadaanaysa calculationka mathematicska John Lennox professorkii mathematicska ahaa iyo Sir Gilbert ayaa u jawaabayo tilmaamaya inaan waxba ka jirin ala kulli xaal nadariyaad bay soo keeneen oo kale waxay keeneen nadariyo la yidhaahdo oscillating universe الكون المتذبذب oscillation universe ka noqonaya oo waa maxay waxay leeyihiin waxay imika la tilmaamaya singularity wax la yidhaahdo singularity ayay dunidu ka samaysantay singularity-gu waa meel physicsku aanu gaadhin markaa waa nothingness singularity-gaasaa qarxay baa la yidhi big bang-ka ka yimid waxay leeyihiin big bang-ka waxaa ku xigi doona big crunch dib buu u duuduubmi doonaa singularity buu noqon doonaa haddana hadhow singularity-gaa dib u qarxaya bay leeyihin markaasuu haddana duniya samaysmanaysaa haddana big crunch baa ku xigaya markaasuu haddana singularity noqonaya dee looma baahna in la abuuray bay leeyihin weligii saasuu ku wadaynaa marna singularity buu noqonayaa marna
universe singularity universe singularity oscillatingkaasi ku jirayaa bay yidhahdeen saynis yahanadu waxay leeyihiin horta wax daliil cilmiya oo sheegaya singularity-gan in big crunch ka horreeyey ma jiro waa riya bay leeyihiin ee wax scientific proof ma jiro ومع ذلك wax daliil cilmiya oo sheegaya big crunch hadduu dhaco inuu dib u bilaabmi doonaana oo sababayaana ma jiro waa ka saddexaad waa ka labaad marka saddexaad waxay leeyihiin thermodynamic loogaynu ka soo warrannay baa ka horjeeda oo mar kastoo uu dhaco big bang uu dhacaba usable energy-gu uu yaraanaya therefore ka ku xiga waqtigiisu wuu ka dheeraanaya crunchka ku xiga waqtigiisu wuu ka dheeraanaya wuu dhacaya ka ku xiga wuu kasii dheeraanaya wuu dhacay that means haddaynu dib u raacna bay leeyihin isaga laftiisu mar buu tegayaa un maxay uu ahaa singularity oo aan waxba ka horreynin idan mashkiladdii maydan xallilin bay leeyihin xataa haddii la aqbalo theorygiina kan mashkiladdii maydan xallilin sidaa awgeed nadariyadda tan labadii nina keenay laba ninoo raasheena bay ahaayeen evangelil iyo isaaq kaletinikov nin la yidhaahdo bay ahaayeen 1963 bay nadariyadan keeneen laakiin 7 sano kadib markii la naqdiyey way ka noqdeen waxay yidhahdeen theoryga waa iska dhaafna kownka mutadabdibka waxa kale u eg qolaa waxay yidhahdeen maye mufradada ayaa azali ahayd waxaan rabaa waxa hadhow laydin sheegi doono dhan inaan hadda idin wada sheego inaan been dambe laydin sheegin waxay dhahaan mufradada waa singularity-ga azali ahaa dhibicdan yar dhibicdani waxay leeyihiin all the density dunida mayo oo dhami halkaa ayay ku jirtay all time oo dhami halkaasi ku jiray space oo dhami halkaasi ku jiray energy oo dhami halkaasi ku jiray idan waa beyond physics singularity-gaasaa ahaa bay leeyihiin eternity marun qarxay iyadana waxay keenaan burhaan la yidhaha burhaanu tark fi lfalsafa burhaanu tark waxaa la yidhaha shay haddii si loo daayo inuu weligii sidiis ahaa dabay ahayde maxaa kalifay inuu qarxo muxuu u qarxay muu sidiisaa ku ahaado waxay leeyihiin haddii sidii uu ahaa wax isbedel uu ka yimi laabudda min murajix bay yidhaahdeen systemku ahaa inuu iska bedelo singularity-giisi inuu iska bedelo oo big bang dhaco waa inuu murajax jiraa yaa istaadhay yaa kiciyey therefore waxay leeyihin questionkii weli kamaydan jawaabin su-aashu sidii bay u taagan tahay iyana waa ka socon weyde waxay bilaabeen haddana fikrad la yidhaahdo multiverses dunidaynu imika ku noole waa maxay universe macnaheedu waa maxay waa kownkii qura ahaa soo maaha waxay dhahdeen maya waxaa jira multiverses waxa la yidhaahdo kownan tiro badan marka kownankaa tirada badan le si kolba u bedbedh lahaa mid ka midunbaa nolosha u soo bantay iyadana waxay yidhaahdaan kownan tiro badan leh inay jiraan horta cid aragtay ma jirto wax science oo proof garayn karaana ma jiro waxaa jira nadariya ay yidhahdaan nadariyat aljusayn the particle theory oo ah haddii kownka aynu isnacno newtorino dira oo ha ka baxo universe-kana bal universiyada kale ha idinka soo jawaabay in wax ka jiraan timekay qaadanaysaa waxay noqonaysaa in wakti uu dunidani ku baabado suurtagal maaha calaa kulli xaal markaynu eegno george ellis ayaa wuxuu leeyahay wax saynisku haba yaraatee sheegay waxani maahee waa riyo rag la yimaadeen buu leeyahay waa wax ay iyagu iska sheegeen multiversisku waxa u asalaysna inuu jiro alkown lium kownka koowaad ee multiversiskani ka dilaaceen si mid ka midi uu noqdo isna waa waxaan jirin richard dawkins ayaa markuu ilxaadkiisa rabay inuu sharxo wuxuu leeyahay ilaah baa abuuraya waxaan sheegayaan ma jiro theoretically waxa maanta la rumaysay wax multiverse la yidhaahdo dabeetana wuxuu yidhi multiverse-ka waxaa qaba Weinberg waa oday kale mulxid oo physicist oo Nobel Prize winner ah
weinbergkii buu u tegey markaasuu weinberg buu wuxuu ku leeyay waa duubantay dee caynkaasaan idhi oo theorygaasaan adiga kuu nisbeeye ka waran weinberg baa wuxuu ku yidhi waxba kama jiraan waxa adii nisbaysay inay dhacdaa buu leeyay waa chance of 10 to power of 120 10 to power of 120 waa imisa one chance oo ah maxay markuu shay aynu samayno 10 to power of 120 yani 10 la dhinac dhigay maxay 120 in la dhinac karo duniduba ma qaado soo sama ogidin waxay yidhaahdaan whole the universe iyagu ra'yigooda say sheegayaan waa 10 to power of 58 particleska duniduba atomiska maaha particleska universekuba marka waxay leeyihin every particle every atom of this universe haddaynu zero ku qorro zeroyada qaar baynu meel lagu qoro la waayaya every atom of this universe haddaad zero ku qorto zeroyada qaar baa maxay meel lagu qoro la waayayaa bay leeyihin haddaad tidhaahdo si ordinarya u qor tirada oo 1 2 3 4 5 ilaa inta laga gaadhayo tiradaas على كل حال بروفيسور بيبلس oo ka mid ah theoretical physics ka ragga ugu waaweyn baa wuxuu leeyahay iftiraadaad hypothesis-ka la sheegay oo dhami buu leeyahay waa hypothesis aan haba yaraatee cilmiga boos ku lahayn buu tilmaamaya inaynu nidhaahno waa nadariye cilmiya uma dhowe waxay ku fiican tahay buu yidhi kuwaasoo dhan inaynu idhaahno waa science fictions inaynu idhaahno buu leeyahay ma aha buu leeyahay science waa maxay science fiction yani waa waxaan jirin markay taa u taag waayeen bay waxay keeneen haddana nadariyo la yidhaahdo waxbaa samaysmi kara iyadaan waxba jirin oo ah premisiskii koowaad ee law of cause and effect ayuu rabaa inuu ka tallaabsado dabeetana wuxuu leeyahay shay ayaa wuxuu ka yimaadaa min laa shay laakiin iyadana waxaa la tilmaamayaa bini aadamka caqligiisu intuu soo jiray bay yidhahdeen waxaa rumaysanoo hore horta lama arag taariikhda reer nebi aadam cid le waxba la-aan baa wax dhasha lama arag oo marka labaad bay yidhaahdeen alcadam almutlaq nothingness absolute nothingness bay yidhaahdeen shay ma haysto oo time ma haysto oo makaan ma haysto siduu u samayn karaya yani waa cadam mutlaqa waa marka saddexaad bay yidhaahdeen waar inaad tidhaahdo labadan fardiyadood bay yidhaahdeen caqligiina kee ku adag inaad tidhaahdo dunidani way bilaabanto ilaah abuuray baa jira iyo way bilaabanto way iska bilaabantay xataa haddaad laba fardiyo ka dhigtay bay ilaaheen caqliga kee gasha yani caqliga bini aadamka ma aqbalayo maxay dunidu way bilaabanto way iska bilaabantay ka waran haddii lagu yidhahdo saynis yahano waaweyn baa sidaa qaba hadda waa nimankii cilmiga loo sheegayay markaad dan leedahay marmar baan cilmigu muuqanin markaad meel u socotee rabto in bini aadamku waxay yidhahdaan science forgery culamada scienceku intay forgery sameeyaan aad bay u tiro badantay soo ma ogidin ingiriiskiina kan bell down meel la yidhahdo meelahan ku taalla mid baa wuxuu aasay madax dad iyo daan daayeer buu intuu isku rakibo hal iligna geliyey buu godgeliyey dabeetana waxaa la isugu yeedhay culamadii museumka london iyo wixii oo dhan oo meeshaa layimi waa la digdiglay waxaa la yidhi waxaa lasoo helay wixii u dhexeeyey bini aadamka iyo daayeerka berigii evolutionku socday dabeetana waa lasoo saaray dunidoo dhami jaraa'idka iyo wax waliba waxay qoreen waxaa la helay alxalaqa alwusta kii u dhexeeyey dadka iyo daayeerko evolutionkiiba ku socda bal daankan eeg bay idhaahdeen daankani daankii bini aadamka weli ma soo gaadhin jamjamada sarese waa jamjamadii bini aadamka 40 sannadood buu yaalay museumka kan oo dadka saa loogu dhigayay 500 oo PhD baa lagu qaatay oo caddaynaya masaladaasi ma malaynaysaa waana been abuur la sameeyey waa fabrication 1950skii baa lagu sameeyey waxaana yidhaahdaan carbon testska iyo wixii la mid ah dabeetana waxaa caddaatay inuu fabricated yahay inaan waxba ka jirin waa saynis yahano waaweyn nimanka waxaa sameynayay oo ingiriis u dhashay oo
isaga yimaadeen dunida oo dhan oo 500 degree adigu xisaabiya PhD 500 PhD ayaa lagu sameeyay bay yidhaahdaan xawla hada almawduuc 40 sannadoodna museumkaasi yaalo dunidu marka saynisyahanadu markay danta leeyihiin xataa waxaan jirin marmar bay u amaamudaan laakiin beeni lug bay leedo de marun baa la qabtaa waa soo baxaysa wax sii socda ma noqonayso idan mashkiladatan nadariyadan ay yidhaahdaan maxay quantum vacuum fluctuations nimanka iftiraadkan wada waxay rabaan qadiyad physics-ka ka jirta inay tan ku matalaan waxay leeyihiin in quantum physics vacuum baa jira marar siduu u joogo particles ka soo dhex bixi karaan particles waa meel vacuum in quantum physics laakiin particles baa samaysmi kara laakiin waxay leeyihiin meeshu ma madhnayne there was a full of energy marka waa energy marna burburayo matter noqonaya marna matter dib u noqonaya saa daraaddeed waa qadiyadda uu rabo inuu publish gareeyo Dr. Klaus ka aan ku leeyahay wuxuu qoray buug ah universe from nothing uu tilmaamayo Paul Davies oo theoretical physics ka nimanka ugu waaweyn ka mid ah mulxidna waliba ayaa wuxuu leeyahay juzaymaadka particles kan ku samaysma quantum vacuum-ku macnaheedu ma aha buu yidhi in khalqi maado la abuuray oo min laa shay laga abuuray war meesha waxaa firaaq maran ma ahayne waxaa joogay buu leeyahay energy tiro badan enerjigii baa saatan loo bedelay saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay wax la aqbali kara ma aha waa fiisisiyaan kale wuxuu leeyahay nadariyadan waxba kama jiraan waxaynu leenahay asliyanba inaad vacuum heshaso inaad space hesha maaha big bang theory wuxuu sheegayaa time and space matter and energy afartuba inay mar qura wada bilaabmeen halkay joogtay meesha faadiga aad sheegaysa xataa makaan ma jirin ma jira makaankaba mar baa lala abuuray timeka iyo makaanka iyo energyga iyo matterka intuba isku mar baa la abuuray therefore xaguu jiraa meesha aad vacuumka ka dhiganayso ee ku vacuumka ee energygu ku jiro iyana waa sheeko aan jirin idan ayuha alaxiba aragtiyahan oo dhami ma aha aragtiyo wax badan sheegaya waxay ku habboon tahay inaynu iska soo koobno waayo wax badan kordhin maaya iyagu waxay sheegtaan mararka qaarkood waa the god of the gaps bay yidhaahdaan waxaa rumaysantiin marka wax la garan waayuunbaa ilaahay keentaan markuu saynisku sheegana waa ka baxaysaan marka god walba inta saynisku uu keenayuunbaa ku jiraysaan ee inta ka horeysa waa laydinka saaraya laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan cilmigu mustaqbalka ma u malaynaysaa inuu jawaab u heli doono kownkani inaanu bidaayo lahayn it's impossible ama se inuu ahaa mawjuud munda alazal eternity inuu lahaa macquul maaha ma u malaynaysaa cilmigu inuu gaari doono wakti uu yidhaahdo waxbaa abuurmay wax la-aan nothingness ayaa universe-ku ka abuurmay ma u malaynaysaa cilmigu inuu gaari doono in la yidhahdo sabab maadiya baa keensatay in kownkan oo dhami samaysmo waxay leeyihin waxaasoo dhami waa umuur cilmiyan iyo falsafiyanba thaabit ah ma aha mas'ale la leeyahay jaahil baynu ka noo hadhow saynisku markuu horumaray keenaysaa waxay leeyihin saynisku jawaabo ma hayo haddaad diidaan in ilaahay dunida abuuray macnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdeen wax ka xun inaad rumaysateen haddaad diiddo in ilaahay dunida abuuray badiilkeedu waa maxay badiilku waxa weeya inaad rumaysato kownkani wuu iska yimi inaad rumaysato badiilkeedu waxa weeyaan inaad rumaysato laa shay ayaa natiijo ka weyne ka dhalan kartaa shay baa natiijada conclusionka ka iman karaa uu ka weynaan karaa badiilkeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo fawda caws ayuu order and plan uu ka samaysmi karaa wax caws aan waxba ka jirin ayaa order and plan ka samaysmi karaa natiijadeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo noloshu
si tilqaa'iya bay maaddo uga soo dhex baxday intubana wax caqliga gala ama wax macquula maaha. waxaan kusoo koobayaa ictiraadaadkoodu inaha kama badna, laakiin waxaa haabita baynu leenahay kow in dunidani mar bilaabantay, laba inaan shayna from nothingness ka samaysmi karin, natiijadu inay tahay laabudda cid abuurtay inay jirto, qaacidaduna ay tahay alcadamu laa yakhluq, cadamku inaan waxba abuurin, faaqidu shayin laa yucطi, midaan isba waxaysan inaan wax samayn karin, ficilkuna inuu mir'aatun lifaacilihi yahay oo kownkan dhan ee sidan u yaalla ciddii samaysay inay cid xikmad iyo cilmi iyo khibrad iyo waxa kan le inay ahayd. laakiin ilaahay wuxuu ina leeyay wain yarow aayatan yucriduu canha wayaquuluu sixrun mustamir wakaayin min aayatin fi الsamaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun baa ilaahay leeyay. ilaahay abuuray baa dadka sheegaya, ilaahay abuurtay ayaa wuxuu leeyahay tiro badana intay aayad cirka iyo dhulkaba ku arki doonaan waa ay soo mari doonaan iyagoo indhaha isku haysto aan ogolayn. ilaahay baa hore uga warramay. ilaahay baa wuxuu leeyahy wan yarow aayatan, daliil haddii la tusiyo intay jeestaan bay odhanayaan waana la sixray. laakiin gruubka caynkan leh ilaahay wuxuu yidhi aakhira waxay odhan doonaan waqaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fi asxaabi saciir baa ilahay yidhi. hadday adduunkaysay dhammaraan aakhiray calaacali doonaan oo odhan doonaan haddaanu wax maqli lahayn ama wax arki lahayn ama caqliga iyaga haddaanu isticmaali lahayn maanan ka mid noqoneen maxay asxaabu saciir, kamaanan mid noqoneen. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir. ilahay baa inooga warramay. ilahay wuxuu leeyahy dadka waxaa ka mid a qaar murmi doona, ilaahay tiisa ku murmi doona iyagoo aan cilmi wadan. athaaratin min cilmi waxaynu idhi islaamka waa maqbuula. iyagoo aan cilmi wadan, kitaab xagga rabbi ka yimi wadan, hanuun haysan ayuunbay haddana ilaahay ka murmi doonaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. idan qofkii raba ilaahay jiritaankiisa inuu ka murmo isagoo sifadaa leh, isagoo aan reason haysanin, rational ahayn, macquul ahayn, wuxuu sheegayaa cilmi jirin, warkiisu isagu khuseeya. markaa kaa warkiisa wax badan kasii odhan mayno. waxaan u gudbi doonaa marka aan masalada koowaad dhaafno. daliilka koowaad muxuu ahaa yaa ii sheegaya aan maanta o dhan sharxayay cosmic argument soo maaha, ama burhaan liijaad ama burhaan lxuduuth aw alxadath ama burhaan alkhalq. waxaynu sharxaynoo dhamme waxay ahayd am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun. waxaynu idhi wuxuu ka kooban yahay laba muqadamo iyo natiijo. muqadamada koowaad waxa weeyaan law of cause and effect. wax kasta oo la arko laabud inuu maxay xaaditho kastoo dhacda, wax kastoo xaaditha laabudda min muxdith. premiseska labaadna wuxuu ka kooban yahay baynu idhi maxay alkownu xaadith bidaliil ilcilmi walfalsafi labadaba. natiijadu waxa weeyaan baynu leenahay maxay laabudda lahu inuu khaaliq leeya abuuray. argumentiskeenu sheegnay 5 argument baynu idhi baynu ka warrami doonaa. ilaa hadda waxaynu joognaa muqadamadii iyo argumentkii koowaad. 4 argumente kale markaa sidaan usoo bandhigaa bal iyo iskaga kin qasmine 10 daqiiqa nasta bacda 10 daqiiq baan bilaabaynaa. su'aal qofkii qabaa masalada hore qofkii su'aal ka rumaysan waa soo tuuri karaa.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخواني وحن إعلام الله هالشيء إن شاء الله تعالى أنت إذا كلا تجن وحويا طبعا وحن ميد ميل إلهي اللجوء مسيء هاي وضدكم مسلمين هاي وأنا وحن وقرأنا المقال أي نقطة طبعا كان ميد لكن وحن نواجه كرنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة لو سيد يبينا وأنه هاي سنة ما فرطنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين حجة كان الشيء يعني رضنا سيد الشيخ وشيء لما تود والله بابين كرا لكن وحيتين إنه يدير قرون إنه على كودا سليب كو قريبا لا إله إلا الله بدل كرا على كل حال أرنت المكادات كويري يكون براروغان وأي برتان سيدي سي لوجيكا عيال كودا داي حروتودا أيوه جواب لهايين كان فوجنادان ماشان أجوغنا إلى نقول السلام ما جوغني تا هل حسن كقبحية إن شاء الله تعالى شيخ جهدي بدن وآد ترى بدن بوجلينا إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتها صار إن شاء الله تعالى وحنا علام لها ولا ليال waxaa jira dowro macallimiinta loogu talagalay oo ka dhici doonta insha Allah taala London masjidka Al-Huda ee Islaamna ku yaala insha Allah taala afarta bisha Sumahin bisha May afarta insha Allah taala marka taana insha Allah taala waa xaruntan aynu hayno oo maartay qaabkii macallimiinta oo dhan insha Allah taala ma tawaddalu ala al-khayr ka faa'ili ki jooga kama qana gaarsiin insha Allah taala dhamaan halka aan sugu nimaado waa afarta bisha insha Allah taala سعد ولا مسا سعد ولا مسا كوبي توم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هدينا برهانك كواد أما دليلك كواد كبحنا وحين بلابنا دليلك لباط دليلك لباط waxa weeyaan mas'ala ku saabsiisan culamadii hore waxay oran jirtay daliilul cinaaya aw daliil al-ghaa'i qoladan dambe ee science-iskuna waxay ku tilmaamaan design argument baa la yidhaahdaa falasafadii muslimiinta qaybo ka midina waxay oran jireen daliilu nidaam أو دليل النظم دليل كان إن شاء الله وحو شيغية أما وحلقة يبقى كتب كفلسفة أما الثيولوجي كانت كواركتو تيلولوجي علم الله يرادو تيلولوجي هو مسألة والدليل الغائي تيلولوجي دليل الغائي برهان النظم وحو شيغية هذا الدنيا دو فرصته wax kastoo aad aragto oo munadam ah wax kastoo aad aragto oo munadam ah waxaad odhanaysaa laabudda min munadim wax kastoo designed ah aad design ka dareento inuu design leeyahay waxaad garanaysaa inuu ka dambeeyo maxay designer inuu ka dambeeyo ciddii design garaysay haddaba mas'alada tani waxay ka soo horjeedaa mas'aladoodii iyada ahayd by chance and coincidence bay waxaani ku dhacaan malaayiin sano marka la joogaba waxaasa iska dhacay wuxuu ma wax la design gareeyeyba mise waa wax malaayiin sano markii la joogay uun sidan u ahaaday waxaan rabnaa waxay yidhahdaan weliba qolada falaasafadu daliilku wuxuu ugu qurux badan yahay bay yidhaahdaan markaad kaagana sugto ka kaasoo horjeedana aad buriso markaa waxay yidhahdaan waa akmal daliilka ugu xooga badan la weeyaan markaad adigu waxaad sheeganaysa inaad sugtid ka kaasoo horjeedaa wixii uu isagu daliilka ka dhigtay inaad burisid walidalik maxay yidhaahdaan daliil ilghaa'i waxa weeyaan shayga waxa ku jira ghaaya مثلا أرسطو صاحب كتاب محل هذا قصة الإيمان بين قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن وذات كيغر نديم الجسر وحوت الماما مثلا أرسطو يوحي لا يوحي إلى هذا الفاعليات الأربعة فاعليات الأربعة وامحي وحين هذا ميس كان مكورتي دياله وحين سويدين إن
yaa sameeyey maxaa laga sameeyey sidee loo sameeyey maxaa loo sameeyey wax kasta buu leeyahay afartaa su-aalood baad isweydiin kartaa markaynu idhaahno yaa sameeyey waxaynu leenahay nijaar sacankaa maaha miiskan yaa sameeyey carbenter nijaar baa sameeyey maxaa laga sameeyey ta hore waxay dhahaan waa cila alfaaciliya yaa sameeyeydu maxaa laga sameeyey waa cila almaadiya bay yidhaahdaan waxay leenahay waxaa laga sameeyey loox bir waxaasaa laga sameeyey midna waxa weeyaan sidee loo sameeyey waa cila suuriya buu isagu u bixiyey waa shakliga afar adin laba rukun meel ballaadhan waa qaabkii shakligii loo sameeyey su-aal afraad baa jirto ah buu leeyahy maxaa loo sameeyey layskama samayninun waa in haaya ay ka dambaysaa waa maxay haayada ka dambaysa waxaa ka dambeeya in lagu muxaadareeyo in wax lagu cuno in waxaynu tilmaamaynaa sababtuu u sameeyey inta badan bay dhahdaan saynisku tahoru ka jawaabaa marar badan ee ta dambe kama jawaabo yacni antony flu baa wuxuu leeyahay saynis yahanadu waxay rabaan qof buur fananaya baad aragta saynis yahanadu waxay rabaan buu yidhi inay nagu yidhaahdaan waxaynu isweydiinayna qofkani muxuu buurta u fananayaa isna wuxuu sharxayaa buu leeyahy cunuu cunay energy isu bedeshay muruqyadaa dhaqaaqay contraction buu sameeyey dabeetana gacantu halkaa ku qabsaday sidii qaabkii uu u fuulay buurta sharxayaa buu leeyahy ee mechanicalka ahaa laakiin waxaynu isweydiinaynaa waay uu meesha u fuulay cila alghaaya markaynu ka waramayno burhaanu nadm burhaankan falasafadii muslimiinta hore aad bay u isticmaali jireen markay mas'alat alwujuud ka waramayaan siiba gaar ahaan ibnu rushd waa daliilku xoogga uu isticmaalo ibnu rushd waxaa ka soo naqliyo reer galbeedka soo gaadhsiiyey thomas queeny filosofkoodii la odhan jiray thomas queeny wuxuu leeyahay bug la yidhaahdo khulaasat llaahut khulaasadiisu alkhulaasa allaahutiya baa la yidhahdaa khulaasadiisu dhowr adilo ayuu keensanaya uu leeyahay ilaahay jiritaankiisaan kaga warramaya daliilkiisa shanaad baa masalada tan yacni laba nin baa inta badan reer galbeedka falasafadii muslimiinta waxoodii usoo horeyay waa immanuel kant iyo thomas queeny labadaasaa inta badan soo raray culamaa ilkalaamka wixii oo reer galbeedka agtooda waa caan ka noqday dadyowgii xoog u isticmaalay waxaa ka mid a qarnigii 19aad dabayaaqadiisii qarniga 20aad bilowgiisii yurub masaladani aad bay ugu xoog badnayd waana masaa'ilkii ay ku jabiyeen malaaxidadu markii ay soo badatay qarnigii 18aad iyo wixii la mid ah waxaa jira nin caan ah oo ingiriis ah william bailey la odhan jiray william bailey saynisyahanka ah wuxuu qoray bug la odhan jiray natural theology ayuu 1802 buu qoray natural theology waa analogigan la yidhaahdo umthulatu saaca waa ninkii keenay umthulatu saaca yani waxa weeyaan saacadda tan maxay sheegaysaa saacadda imika gacantayda ku xidhan waxay sheegaysaa kow sidii loo sameeyey markaan aragno geerarka yaryar iyo waxa ku jira iyo electronicskan iyo waxaan la isku xidhay waxa kan waxay sheegayaan hadaf laga lahaa waxay sheegaysaa ciddii samaysay saacaddan design baa ka muuqda in la design gareeyey waxay sheegaysaa designerku inuu xakiim ahaa cilmi lahaa haayana uu lahaa dan buu u sameeyey waa maxay dantuu u sameeyey inaynu maxay wakhtiga ku eegano idan umthulatu saaca bay yidhaahdaan watch analogy waa odaygii lahaa odaygan la yidhaahdo william bailey iyo fikraddiisu waxay sheegaysaa wax kasta oo haayadiisa la fahmo waxay tilmaamaya yani wax kasta oo musamima wax kasta oo designida waxaad ka fahmi kartaa ciddii designkan dejisay inay caqli leedahay intelligence inuu jiro inay xikmad leedahay inay qudra leedahay inay hadaf u socotay wuxuu leeyahay designkaa laga arkaa waxaa laga yaabaa masalada markaynu ka warramayno maalan dunidaynu eegaynaa ama jihaas ka mida jihaasyada meesha yaalla ama unugaynu eegaynaa halka sal ee bini aadamku
selka yare bini aadamku waxay leeyihiin DNA-dan iyo waxaan uu sameeyo amino acidskan uu sameeyo per second 2000 buu sameeyaa bay idhahdeen every cell jirkeena ku jira any computer gaadhaa ma jiro 2000 amino acids ayuu selku soo saaraya per second qiyaas idan unuga yari wuxuu leeyahay factory yuu leeyahay wadooyin wax la mariyuu leeyahay meelo dariiqo wararku ay maraan bay leeyahay masaaniic wax soo saartuu leeyahay wuxuu soo saaruu gudbinayaa wuxuu samaynayaa DNA dib u duplicate garaynayaa DNA da bini aadamku ay ku qaadatay culamadiisoo dhan inta laysugu geeyo in genomka insaaniga intaasoo khabiir laysugu geeyo intaasoo sannadood qaadatay inay baadhaan seconds buu ku duplicate gareeyaa ayuu nsl waxa maqashaan sellanku wuu kala go-ayo labuu noqday soo maaha unugyadu markay korayaan labada afar noqda markuu laba noqonayo that means waxa weeyaan wuxuu duplicate gareeyay wax allaaliya wuxuu macluumaad hayay nsl waxay leeyihiin macluumada ku jirta ما بين السماء والأرض أو سي دي يا بقاضي كريم ما بين السماء والأرض أو سي دي لسقط حي information كوسيتو DNA دي سيري إذن anything دوني ده كم بدأ نسوق قاضي كرنا وحين يجي كرنا كوكب يسدو سميسي وحيمانتين لين 300,000 ميل هذان إن galaxies بهذا اللوجي أملا كرنا يا بيد هذان galaxy كستا وحكا سميسي محي billions and billions of stars ama group wada socda group kasta intaasoo yani waa waxaan tasawuri karin markaad akhrido kutubta astronomy waxay sheegayaan waxaad soconaysaa wadad waalana wax iska qorqoray malaayo waxaan wax jira maaha siduu waxay tilmaamayaan uu weeye waxaasoo dhan oo la leeyahay way wada ordayaan wax meel taaganina kuma jiraan wax isjiidhayaana ma jiraan waxaasoo dhan nidaam bay wada socdaan la tilmaamayo amase in chemistry geedkan iyo geedkan caleenta yara saarani waa warshada dunida ugu ballaaran soo ma ogid warshada qura dunida quudisa waa noocma waa caleenta geedka caleentan geedka masnaca waxa bini aadam iyo xoolaba cunaan dee caleenta erba samaysaa caleentaasina fotoselkeeda yare cadceedda la kulma ayaa dabeetana wax soo saara iyada geedka quudisa geedka xooluhu sii cunaan xoolaha dadku sii cunaan dad iyo bahal iyo xoolo iyo wax walibana geedkaasay cunaan geedkana caleentan baa warshada idan dunidoo dhan warshadan yar baa quudisa halkan warshee yare dhinaceena taala aan sanqadh lahayn oo poison lahayn oo buuq lahayn oo waxba shaqaynayso 24 saacadoodna wax soo saaraysa haddaba waxaynu leenahay muqadamada caqliga ee koowaad aynu ka warramaynaa waxa weeyaan waxaanaynu arkayno dunidoo dhan waa munadam wax kasta waa designed muqadamo labaad oo caqliya jirta muqadamada hore waa muqadamo xisiya yani waxaanaynu dareenay waa muqadamo xisiya muqadamo caqliya ku xigto maxay sheegaysaa wa kullu munadhamin laa budda lahu min munadim wax kasta oo la nidaamiyey waa inuu yeeshaa maxay cid nidaamisay weli kama jawaabayno yaa nidaamiyey ma sudfa just by chance buu nidaamkani ku yimi ma dabeecada ma ilaahay baa taasi haynoo taalo waxaynu isku waafaqsannahay wax kasta oo munadami inuu leeyahay maxay laabudda min munadim wax kasta oo nidaam leh organized cid organize garaysay waa inay jirtaa baynu leenahay su-aasha markaa isweydiinta leh waxa weeyaan waxani ma cid intelligent abaa design garaysay mise unintentionally coincidentally by chance ayuu u dhaca waa labadaa un jawaabadan in mid qaadano inay cid intelligenti design garaysay iyo inuu dhacay maxay accident مثلا علم الحفريات أنت وحركتان علماء دول قد أو لليه وحلا بادي دونية حضارة هورية وحي هوري صحيح كماها داك حبو ما أنت دول قضية داك حنت اللقاء صوصارة قارنة والله إلالنا يا قرارة بالوردة يا مال بالله يا وحبا قارنة ولا طورية وايو قارنة ديساين باكا موضة
qaarna design kama muuqdo qaar waa iska dhagax caadiyo oo un dhinacyadu jajabayiin markaa design kama muuqdo qaarna waxaa la odhanayaa waxa kani sawir qofeed buu leeyahay marka waxaa caqligu sheegaya maxay inuu manxuut yahay in cidi qortay miyaad ka aqbalaysaa ciiddu ku jiray unbaa isfeeraarisay oo dabeetana sanamkan yar samaysay cid aqbashay miya aragteen maya dunidao dhan waxay isku waafaqsan tahay sanamkaa yar xadaarad hore inay jirtay oo xadaarada maynan arag wax sheegayana maynan maqal dhulkaa la qodqoday unba waxaynu ka soo saarnay sawirada iyo haamaha iyo waxaa ku jira siday u samaysan yihiin ayaa waxay maskaxdu sheegaysaa waa shay munadama waa designed mar hadduu designed yahayna waynu jiraa maxay cid design garaysay baynu nidhi ka waran haddaynu idhaahno maye wuu iska samaysmay adduunkan haddaba in every aspect eg meel kastoo dunidan ka mida design baa ka muuqda hada design ma waxaynu odhan karnaa wuu iska samaysmay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tatadakkaruun baa ilaahay yidhi ka wax abuuray abuurku design baa ka dambeeya badiicu samaawaati walard ka wax abuuray iyo kaan wax abuurin miyay siman yihin baa ilaahay leeyahy miyaydan caqli lahayn ama waantoobaynin ilahay wuxuu leeyahy warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar meesha ikhtiyaar baa jira iraada ilaahay wuxuu doona buu abuuray cid doonitaan la wax abuurtay baa layna leeyahy ilaahay wuxuu ina leeyahy inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء عنده بمقدار والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأنزلنا من السماء ماء بقدر صنع الله الذي أتقن كل شيء إذن أيها الأحبة تصميمك أما نظامك صدح ركني بولي شيء صدح شرطي مركا لقى هرا ليلة هذا هو منظم هو ديسايند شرطي كواد وينو أجزائي هي ايتمز كلا قديسن ولا سكو سمينية وينو يي شيء قال بعد بيد هذان وينو التناسق لي يعني قابو سوق هذان أيه وينو ليه شيء صدحات بيد هذان وينو هدف ليه سبب لو سميي وحن لو ديساين قريي وين شرته هذا ما وحي سويدين له كون كم بلارنا إنه أركنه إيه وحين لين everything القدرة العمياء بس ما يسبين هذا the blind watchmaker بو قري محي ريتشارد هوكنس blind watchmaker يسقون ربين الرديو ويليام بيلي تيسي يعني إندوله ساعد سمي ساعد إندولو سمي وحلي الدنيا التن ناجرال سelection بس كذا عدو وإندولها سمي قستي وحبطونا لقى ولا هين سيسجل سعتم بس تنو سميسات لكن waxaa ilaahay mahadiya maanta jaanisku inuu yahay qaacido xisaabeed oo la xisaabin karo iskuulka waxaa ku dhigataan waxa la yidhahda maxay probability soo maaha wax waliba jaaniskiisu intuu yahay inteeba jaanis suurtagal waxaana waxaa lagu odhanaya waxaasi jaanis ma leh waxaana waxaa lagu leeyahay jas waxay leedahay jaanis baa ku jira inay dhici karto aan tusaalayaal bixiyo ay culammadu sheegaan waxaad aragtay irbad derbigaa ku mudan oo irbad kale dabada kaga jirto irbadda soo ma taqaanay needle ayaa derbiga lagu muday needleka meeshiisa yare daloosha hoolkiisa yar ayaa irbad kale ku jirta laba qof baa kuu yimiyo nin wuxuu ku yidhi nin dhugyahana oo shiishyahana oo shaab shuutara ayaa intuu irbaddaa la liishaamay godkaa dambe geliyey do you believe that laakiin caqliyan mustaxiil maha bay yidhahdaa in our experience tajribadeenna marka la eego waa yaro baciid waa fog tahay irbaddaa inta derbi la geliyaa irbad kale midi sidaa yidhi uu la helay waa yaro fog tahay laakiin waxay ku leeyihin philosophy mustaxiil maaha
يعني غير معقول wax la odhan karo oo mustaxiil oo aan abadan waxaan dhici karin maaha mar haddii aanu mustaxiil ahayna waa maxay chance guula baa jira uun just milyan jeer buu ku tuuray 2 bilyan oo goor markuu ku tuuray buu mar la helay iska suurtagal tahay haddii la wadaado maanta oo dhan buu ku waday cibrigiisaba baashaas isku waday dabeetana mar bay gashay waa suurtagal mid kale ku yimo wuxuu yidhi war maaha irbaddaa derbiga ku jirta irbadda kale dabada kaga jirta wiil yaroo hooyadii indhala-aan ku dhashay ayuunba sidaa yidhinoo jaf uu siiyey ma aqbalaysaa maxay kulatay tii hore way ka yara baciidsantay soo maaha ila kii hore nin sharp shooter oo wax tuuri karayuu ahaa kan waxaa lagu yidhi waa wiil yaroo indhaabalo aan waxba arkaynin oo sabi yaroo hooyadiisaa ku dhashay laakiin haddana waxay leeyihin mustaxiil maaha haday ku yidhaahdaan billion times baa lagu tuuray haddiiba uu noolaan karo aakhirka mar uun way iska geli kartaa laakiin haddaad u timaado derbigii oo 10 irbadood midba mid dabada kaga jirto 10 irbadood baa midba mid dabada kaga jirta dabeetana waxaa lagu yidhi inan yar oo indhala waa maxmuun baa soo qaada uno jaf buu siiyaa dabeetana uu soo qaadaa midbata kale dabadeeda gelaysaa 10 irbadood oo midbata kale dabadeeda gelaysay do you believe that de hada mustaxiil maaha mustaxiil maaha haddii lagu yidhaahdo waxaa ka sii daran irbaduhu number bay lahaayeen kiish baa loo dhiibay 10 irbadood oo ay ku qorantay 1 2 3 4 5 6 7 10 ay ku qorantay dabeetana gacantunbuu jaf siiyaa ta koowaad buu soo qabtaa way garaysa waa number 1 bal idamka ilaahay wuu ku celinayaa waa number 2 buu soo helayaa way isku qasan yihiin laakiin gacantaa markuu geliyo wuxuunbuu soo helayaa maxay midbata ay ku xigtay do you believe that waxaa qoray waxaa jira waxay yidhaahdaan fardiyat lqirada qolada darwinismka fardiyat lqirada waa monkey or ape hypothesis bay yidhahdaan fardiyada tan waxa weeyaan waxaa laga soo naqliyaa huxleyigii weynaa inuu qoray thomas huxley odaygii agnostic ahaa ee darwin saaxiibkii ahaa fardiyadu waxay sheegaysaa haddii buu yidhi daayaro dee berigaa teeb baa jira combyuter ma jirin teeb la dul fadhiisiiyo oo ay balaayiin mina sanaad garaacaanuun lagu sii daayo wax daayeer joogo iyo teebaba la isku sii daayo maalinta dambe shakespeare warkiisa iyo qoran ba halkaa laga heli karaa buu yidhi shakespeare warkiisa iyo qoran fardiyat lqirada dabeetana inanku awowga u ahaaba buug qoray la yidhaahdo man stands alone mulxidka ahaa julian huxley waxaa u soo jawaabay akademiyaadka cilmiga ee maraykan new york ninkii haystay oo la odhan jiray abrahim chris morrison isna wuxuu leeyahy buug la yidhaahdo man does not stand alone kani wuxuu leeyahay bini aadamka cidina ma abuurana keligii buu istaagi karaa isku filayay kanina wuxuu leeyahy iskuma filla waa laba saynis yahan laba khabiiroo waaweyn oo dunidu ka dambayso midna wuxuu ina leeyahay waxba ma jiraan midna wuxuu leeyahay maxay ma istaaga chris morrison baa wuxuu yidhi jaaniska sudfada ee 10 gambo oo number ku qoran yahay inta kiish lagugu raaxo haddii lagu dhiibo lagu yidhaahdo ka soo saar sida isugu xidhnayd weligaaba wadun kolba gacantaa geli 1 2 3 4 5 6 7 up to 10 mar saxa soo saar waa jaanis 1 to 10 billion weeyaan ilaan probability marka dhigan ka jirtaan 10 item oo mid waliba hal jaanis leeyahay waa maxay waa 1 divided by 10 lagu dhuftay 1 divided by 10 lagu dhuftay 1 divided by 10 1 divided by 10 that means waa 1 divided by 10 to power of 10 10 to power of 10 na waa imisa waa 10 milyard soo maaha milyardku waa 10 to power of 9 ama idinku billion baad tidhahdaan soo maaha billionku waa 10 to power of 9 that means 10 bilyan oo jeer marka la tuuro ayaa hal jaanis ku jira 10 bilyan oo jeer markaad gacanta kiishka yar geliso ayaa hal jaanis oo saxmi kara ku jira laakiin atheistku wuxuu leeyahay okay
maybe inuu jaaniskaa yahay de waxay dunidu ku samaysantay aduu maxaad ku diiday halkii jaanis ayaa sida tan u dhacay axaduhum baa wuxuu yidhi war waxaana sheegaysaan macquul maaha buu yidhi haddii buu yidhi lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhi madbacaddii magaalada ku taallay ayaa dhulgariir dhacay madbacadaha waxaa yaalla sanaaduuqdan maxay sanaaduuqdan lagu sameeyo dee xuruufta oo alphabets baa ku jira sanaaduuqda marka munadadka qofkan samaynaya kitaabka daabacaya baa ku naba dee erayadii kolba la rabay sidoodii isugu naba madbacaddu hadhow saasaa loo daabacaa marka waxaa lagu yidhi sanaaduuqdii oo halkan taallay sanaaduuqdii madbacaddu xarfuhu ku jiraan a b c d f g h baa ka buuxa xarfa ah malaayiin a iyo malaayiin b iyo malaayiin c baa ku jira ayuu dhulgariir dhacay dabeetana sanaaduuqdii baa cerkaa u baxday halkaasay wixiiba ku daateen waxaa la arkay 10 kelmadood oo isku xiga oo samaysmay 10 kelmadood oo samaysmay logic matay malaayiin erayi hadday daataan oo dhul ku dhacaan in marun la arko 10 eray oo af ingiriisi oo la fahmi karo jaanisku suurtagal baa la dhici karta yani caqliguma diidayo ka warran haddii lagu yidhaahdo hal sentence bay 10 erayna isku ahaayeen hal sentence ayay isku ahaayeen haddaba haddii lagu yidhaahdo mid yidhaahdo maya sanaaduuqdii markay qarxeen ayuunbaa waxaa qormay buug 500 oo beij ah oo gabay ah oo isku xidhan ayuunbaa madbacaddii qaraxday samaysa do you believe that haddaba waxaa laga yaabaa buugga 500 ee beija inay ka cajabsan tahay hemoglobinta adiga kugu jirta hemoglobinka kugu jira waa 539 ayay ka samaysan tahay amino acid kasta waa 80 amino acid baa dunida jira 20 ka mid oo qura weeyaan jirka bini aadamku wuxuu aqbali karaa 20 ka mid kastaaba waa 3 bay kuwa bidix iyo kuwa midig iyo kuwa neutral dhammaantood waa wada bidix haddaad jaanis ka xisaabisaaba hadda ka adakan laakiin waxaad ogoshahay hemoglobintaadu by jaanis by evolution by kada inay ku samaysantay ama sanduuqaasi qarxay ee gabayga Shakespeare qoray wuu kula adag yahay waxaan leenahay sudfadu ama probability it's a mathematical question maaha meel lagu gaban karo malaayiin weligaaba soo balaayin leh 14 dhaafi maysid waayo waxaynu sala qaadanay inay dunidu maxay tahay 14 billion years inay jirto cidii ugu badisay kuwa ugu badiya 20 bay gaarsiiyaan okay it's less than 20 billion years waxba balaayin leynin 20 billion years maxaa samaysmi kara waxay isweydiinta leh waxay tahay markuu yidhi Thomas Huxley markuu yidhi waxbaa qarxay oo dabeetana uu yidhi daayarra haddii meel la saaro oo ay garaacaan waxbay soo saarayaan المجلس القومي البريطاني للفنون والعلوم ururkan ingiriiska للفنون والعلوم علوم ساينسka iyo fanka ayaa waxay yidhahdeen maynu tajribayno horta fardiyatu lqirada maanta waa la tajribayn karaa ma la tajribeeyo computer simulation bay sameeyeen in sawiro computer meesha la dhigo qaarkoodna waxaabay yidhahdaan waa la train gareeyey aduu computer daayaro kontona oo keyboard loo dhiibay oo keyboardka lagu train gareeyey inay garaacaan oo si cashwaaiya u garaacaan saasoo isaga garaacaan oo keyboardku 26 eray ee ingiriisiga iyo 4 taabiska ka mida buu leeyahay 30 kaale ayay garaaceen hal bila baa lagu daayay lixdaayeer oo keyboard iska garaacaya oo ku wada oo hal bila garaacaya waxay yidhaahdeen 50 waraaqood bay daabaceen daayaradii waxay wadaanba
waa tajriba ay sameeyeen ingiriisku kontonkii waraaqood bay idhaahdeen even a single word la fahmi karo af ingiriisi kuma jirin bay idhahdeen single word daaye even bay idhaahdeen in english bay idhaahdeen labada dhinacba ka banaani it's a word socanka maaha a book markaad tidhahda dee waa a word in english socanka maaha even tab dabeetana inaad taab qorto taab qorto xataa taasi bay leeyihin labada dhinac ka banaani kontonka bage kuma jirto bay idhahdeen kontonka bage ay qoreen habeen iyo maalinba garaacayan kuma jirto marka waxay leeyihin fardiyadu suurtagal maaha laakiin fardiyada tani weliba wax badan maaha waa 1 divided by 30 oo 3 jeer la isku dhuftay waxay leeyihin waa 1 divided by 2700 waxaan kaasiya waa waxaan badnayn laakiin fardiyada qiradada oo nin baa yidhi mayn xisaabinaba waxaa jira Schroeder professor la yidhaahdo yahuudiya MIT Maraykan nuclear physics ka qolada ku takhasustaya Schroeder wuxuu yidhi maan fardiyadada wuxuu leeyahay waa nimanka mulaaxidada radiyo ka mid yahay dhowr book buu leeyahay Science of God book la yidhaahdo dhowr book oo caynkaasiya buu leeyahay wuxuu waana kan ninkan Richardna buugiisa kan waxbuu isu gegeeyay wuxuu yidhi daayaradaasaan eegayaa laakiin isagu khiyaamu sameeyey programming buu sameeyaa in daayaradu markay eray saxa hadduu saxay noqotaba in la yidhaahdo kuwa dambe halkaa kasii bilaabaan yacni waa program ka horeeyuu sameeyo khiyaamaha dabeetana ninkaasaa wuxuu yidhi anaa calculationka samaynaya wax badan ma rabna buu yidhi waxaan calculate garaynayaa gabay uu leeyahay buu yidhi Shakespeare oo sonnet la yidhaahdo gabayga sonnet la yidhaahdo ka bilaabma buu yidhi shall I compare the to a summer's day gabayga baydkaa ka bilaabma gabaygaasi wuxuu ka kooban yahay buu leeyahay 488 xaraf gabaygiisuba waa hal gabay oo Shakespeare leeyahay sonnet la yidhaahdo waa 488 xaraf ka mid ah Gerald Schroeder calculationka markuu sameeyey wuxuu leeyahay chance-ka ah in gabaygaasi by chance ama daayiraha garaacana ama wax kale ha garaacana by chance gabaygaasi uu ku samaysmo wuxuu u baahan yahay waa chance 1 divided by 10 to power of 690 that means waxa weeyaan 10 la dhigay 690 ibir tiradaasi iyo hal chance ku jira bay yiraahdeen oo ma oran karnaa halkan dee weli there is a chance maya William Dambeski nin la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi dunidaba bal horta chance-ka ku jiri karaa muxuu noqon karaa isba weydiino dunida gebigeedba wuxuu leeyahay dunida gebigeedba William Dambeski waa nin double PhD oo maths iyo philosophy labadaba PhD ku sita theology MA ku sita waa intelligent design groupka Discovery Institute ku ka tirsan yahay William Dambeski ama kuwa ka tirsamay ka tirsanaan laakiin waxaynu eegaynaa soo wuxuu xisaabiyay William Dambeski wuxuu leeyahay all particles in this world science yahanadu waxay leeyihiin waa 10 to power of 58 waxa allaaliya waxa dharrat wazn almaada dhammaanteedba waa 10 to power of 58 kilogram ama si kale haddaynu nidhaahno waa 10 to power of 80 bay kuwa ugu badan sheegaan 10 to power of 78 particles waxa atoms dunida yaala waliba atom maaha waa particle markaad sii kacdo proton iyo neutron iyo kuwa marka la tiriyo bay leeyahay universe kaba calculation koodu wuxuu sheegayaa inta haye wuxuu yidhi waxa particle dunida jiro oo dhan haddaynu u xisaabino mid waliba inuu computer keligii noqdo every particle inuu computer noqdo aynu eegna buu leeyahay dunidu waqtigay soo jirtay dunidu waxaynu leenahay 13.7 bay jirtay 13.7 seconds u bedel waa 10 to power of 90 seconds dunidu way intay jirtay markaa 10 to power of 90 seconds ayaa dunida cimrigeeda hadda lagu qiyaasayaa waa inu ku darna buu leeyahay chance-ka dhici kara intaasoo dhan markaan xisaabiyo buu leeyahay uu isku wada daray waa 10 to power of 80
lagu dhuftay 10 to power of 45 oo ah saddex shay buu isku soo dhuftay saddexda shay markuu isku dhuftay waa 10 to power of 150 that means waqtiga iyo itemiska iyo inta ugu yar ee uu dhici karo event waqtiga ugu yar ee event dhici kara waa 10 to power of 45 saxiixa maaha Planck's theorem de markaynu ku noqono waqtiga ugu yar hadduu waqtiga wixii ka dambeeya physics kuma xisaabin karo yani waa waqtiga uu 1 centimeter miyay yidhaahdaan lightku intuu kaga gudbi karo lightka maxaynu maxaa imika laynagu yidhi imisuu jaraa saddex kun soo maaha oo kilometer per second 1 centimeter intuu jari karaa hadduu 3,000 oo kilometer per second jarayo 1 centimeter imisa of a second buu ku jari karaa waxay yidhaahdaan waa 10 to power of 45 waxba ha xisaabin idan reaction chance ba dunida wuxuu waxba xadath dhacdo event waqtiga ka yar dhici kara ma jiro marka eventka waqtiga ugu yar event dhici karo iyo waxa dunidu ay leedahay particles aynu ka dhignay chips wax xisaabiya chipkii computerka kale aynu ka wada dhignay oo garaacayay ilaa iyo dunidu maalinta ay bilaabantay 10 to power of 25 of a second buu noqonaya inta marka la isku dhufto buu yidhi dhammaanteed waa 10 to power of 150 10 to power of 150 haddii probability-gu intaa ka bato markaa 10 to power of 160 that means waa nonsense dunidaynu nool lahay suurtagal kama aha probability-ga even in la tijaabiyo qadiyada ma fahamtay meeshaan u socdo even in la tijaabiyo suurtagal kama aho waxaynu u baahanay kownkaynu ku noolay kown ka tiro badan waqtigu noolaa waqti ka tiro badan maadadiisa maado ka tiro badan marka chance-kaasi ma dhici karo chance kasta oo ka badan 10 to power of 150 chance kasto ka badani waa chance aan jirin sonata in la sameeyana maxaa lagu tilmaamay muxuu ahaa 10 to power of 690 that means imise kown oo kale aynu u baahanay waxay leeyihin waxaynu u baahanay 10 to power of 90 counska 600 universe aynu haysano 600 oo kale universe baynu u baahannahay si aynu u tijaabino in one chance uu dhici karo oo sonata lagu sameeyo maxay by probability lagu sameeyo Gerald markuu masaladan sameeyay calculation kan uu sameeyay odagii mulxidka malaaxidada ugu weynaa markaas iyo la oran jiray Anthony Flew ayaa wuxuu yiri waxaan u tagay ninka kan Gerald Schroeder baan u tagay buu yiri dabeetana waan weydiiyay war xisaabtaasi sax ma too ma samaysay calculation kii buu tusay buu yiri markaan calculation kii arkay ayaa waxaan yiri buu yiri inna mubarhanatu alqird mujarrad kawmatun min an-nafayat marka probability-gii daayiraday wax gargaraan waxba soo baxaya qashinka ha lagu darabaan ku yiri buu yiri markaan arkay ninkan calculation ku sameeyay waxaan oo dhan maxaan uga jeednaa dunida tan in everywhere la arko meel kasto ka mid oo aynu eegna waa designed waliba maadaama waqtigu uu yar yahay waxaan tilmaami doonaa dhowr shay dunidan wax kasta oo yaala waa wax design ku socda hadday tahay bini aadamka unugyadiisa qaabku u abuuran yahay noolaha dhammaanteed dhirta xayawaanka dhulka badda cirka everything in this world wax kastoo dunidan ka mid oo adeegto waliba waxaa intaa raacda waxay leeyihiin wax badan oo dunida ka mid ah hadday in yar waa fine tuned yani fine tuned waxaynu ku sheegnay waa
shay kasta halkaa uu iminka yahay haddii in hoos looga dhigana waxaana jiri maayaan, haddii in yar kor looga dhigana waxaana jiri maayaan. walidaalika ayaa ninkii la odhan jiray Darwin laftiisu wuxuu ku qoray maxaa la yidhaha mudakaraadkiisii buuggiisii xusuus qorka wuxuu ku qoray weedho uu tilmaamayo reason tells me of the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe, including man with a capability of looking far into futurity. warkiisa markaan soo duuduubo de aniga af ingiriisiga waa gabadh oo si fiican u fahmaysaane markaan isku soo duuduubo wuxuu leeyahay waxa aada u adag ama mustaxiil aan caqliga gelin inaan kownkan weyne muuqda nidhaahno sudfa cumyaabuu ku samaysmay. waxa qasaba buu leeyahay inuu kownkani yeesho cid abuurtay. taa haddaan sheegana waxay macnaheedu tahay buu yidhi inaan anna ilaah rumaysanahay. waa Darwin baa leh. waxay taa macnaheedu tahay akhiiran wuxuu ku gabagabaynayaa inaan anna maxay ilaah rumaysanahay. ayuha alxiba markaa waxaan leenahay reasonkii labaad ama shaygii labaad ay deliishanayeen wuxuu ahaa kii koowaad waxaynu nidhi eternity buu ahaa kaa waynu ka soo baxnay. ka labaadna waxa weeyaan everything unintentionally coincidentally sudaf ayuu u dhacaa. designkan waxa sameeyey sudfa buu ku yimi. inay designer tahay waa la arkaa laakiin designkan waxa sameeyey sudaf. laakiin markaaynu xisaabino sudafka oo design samayn kara waxaa la leeyahay suurtagal maaha. idan mathematically ba waxaynu leenahay waa disproved in la yidhaahdo kownkani sudfa buu ku yimi. sida awgeed ayaa Paul Davies ayaa wuxuu leeyahay dunida tan markay Big Bang ku dhacay. Big Bang waa qarax soo maaha, qarax weyn. qarax maxaa ka ratib ma ya qarax disorder buu dhalaa socanka maaha. daartan haddii la qarxiyo maxaa soo baxaya disorder socanka maaha. intay qaraxday haddana order noqotay ma sax baa markaa dunidii way singularity baa qarxo bug yidhi markuu qarxayna orderid bay noqotay shay munadam oo nidaam le bay noqotay. is that logic? waxa uu leeyahay ninkan Harun Yaxya la yidhaahdaa bug buu leeyahay la yidhaahdo the creation. markaasu wuxuu yidhi haddii lagu yidhaahdo hadhuurkii beerta laga soo guray wiidkii beerta laga soo guray meesha lagu tuulay ayaa bam lagu dhex qarxiyey. bamkii qaraxii wuxuu sababay in sareenkii oo dhami kiishashka ku shubmo. dabeetana kiishashkii oo dhami bug intaynayana yidhaahdaan gawaadhida ku rasaysmaan. ma rumaysanaysaa? beerta dhexdeedii baa bam ka qarxay. bamkii baa dabeetana gawaadhidan raran ee sareenka sida bam baa soo raray. ma rumaysanaysaa? may waa baciid. waxaa la mida buu leeyahy in la yidhaahdo dunida tan way qaraxday. مثلا shaygu markuu qarxo two things baa jira. qaraxu waa force of expansion socanka maaha. gravitiguna waa maxay? waa force of contraction soo haynaya. shay kastoo qarxaa aakhirka wuxuu kusoo noqdaa maxay? dhulka. inta uu badan yahay forceka qaraxu oo uu ka badan yahay gravitiga qaraxu kor buu sii soconaya socanka maaha. maximumka markuu gaadho critical point buu tegayaa. dabeetana gravitationka ka xoog badanaya kadibna shaygii maxay dib u dhul ugu soo dhacaya. waxay leeyihiin dunidu qarax bay samaysay. qaraxay samaysay de waa materialku gravitational force baa jira dib u soo celinaya. qaraxina weli wuu socdaa bay leena waynagii caddaynay say tilmaamayeen expansionki redshiftkii casaankii sii tiraada badanayay inuu sheegaya inay weli sii kala socoto oo qaraxii weli sii socdo. haddaba wuxuu leeyahy Paul Davies لو اختل التوازن بأكثر من 10 أس سالب 18
balanceka dunidu buu leeyahay hadduu isbedeli lahaa labadaa force of expulsionka iyo force of gravitygu differenceka u dhexeeya hadduu isbedeli lahaa buu leeyahay 10 to power of 18 of a second in leg time hadduu isbedeli lahaa 10 to power of 18 waa imisa waa quantalium ya saxanka maaha trillion quantalium quadrium quantalium baa ku xiga yani waa 10 18 zero dhinaca laga dhigay second intaa loo qaybiyey qayb jus ka mid ah haddii uu speedku isbedeli lahaa accelerationku intaa in leeg hadduu isbedeli lahaa intaasi intay leegtay accelerationkaasi hadduu isbedeli lahaa 10 to power of 18 of a second in leeg dunidu may jirteen bay leeyihiin imaa hadduu ka yariyay inkimaash baa dhici lahaa intay bug tiraahday markiiba dib isugu noqon lahayd bay leeyihiin gravitationka ka xoog badan lahaa ama cagsiga intay bug tiraahda bay kala firiri lahayd sida daraaddeed waxay leeyihiin halka uu qaraxu siduu u dhacay ayaa oo dharina bay leeyihiin walidaalika isagoo qura maaha xataa stephen hawking odaygan ingiriiska ahi buuggiisii brief history of time iyo mid kasii gaaban buu leedhahaa briefer history of time uu bixiyey waa labada uu sii kala gaabiyey waxa uu dhigaya uu leeyahay isna sidoo kale uu tilmaamaya wax intaa ka yar the rate of expansion 1 second after the big bang had been smaller by even 1 part in 100,000 million the universe would have recollapsed before it ever reaches its present size buu leeyahay hadday intaa in leeg isbedeli lahayd dunidu mar hore ayay dib isugu noqon lahayd idan maxaa halkaa saaray inuu speedkay ku socotaa intaa noqdo otherwise ma jirteen bay leeyihin equilibriumiska dunidan ka jira markuu eegayay roger penrose dee maar haddaa ingiriiskaan idiin badinayaa isaguna waa ser professor doctor weeyaan physics waa saaxiibkii ninka kan wuxuu leeyahay dunida inay nololi ka timaado by chance nolol ay ku timaado buu xisaabiyey dabeetana wuxuu yihi chancekaasi waxa weeyaan 10 to power of 10 to power of 123 intaa ma fahmi karaysaa 10 to power of 10 waa maxay say 10 to power of 3 waa maxay waa 1000 soo maaha 10 to power of 10 na waa maxay waa 10 billion soo maaha haddaba waxaad tidhaha 10 to power of 10 billion to power of 123 waa double power baa la isticmaalayaa waa 10 to power of 10 to power of 123 waa tiro aan marnaba caqli bini aadam qiyaasi karin suurtagal marka wuxuu leeyahay roger penrose suurtagal marnaba ma aha buu leeyahay inay waxa kani ku dhacaan maxay inay by chance ku dhacdo haddaba inaynu idhaahno over 300 billion galaxies baa jira dunida inaynu idhaahno oo si explosion hayru caadiya intuu dhacay ayay waxaasoo dhame haddana organized noqdeen oo order yeesheen macquul maaha bay tilmaamayaan sidaa awgeed waxa ay sheegaan fine tuningka markay ka warramayaan dee waxa kaloo dhan ka kaalay dhulkan aynu ku noollay intaa in leeg hadduu isbedelo nolole kama jirto 20 degree buu saan u janjeedhaa haddaanu janjeedhin nolole kama jirto thicknesska qashra alardi waa intaa haddaana intaa ahayn nolole kama jirto everything waxay ku odhanayaan haddii in yar unuu ka kaco nolole kama jirto idan waxa meesha yaalla waxa weeyaan siduu ninkii sheegay waa wax laynoo tolay buu ku tilmaamay waa wax laynoogu talagalay markaan warkaa iska soo koobo waxaan kusoo koobayaa hal shay waxa weeyaan dunida order baa yaalla nidaam design baynu aragnaa design hadduu jirana waa laabudda inuu designer jiro haddii uu designer jirana sifaadkiisa waxaynu ka dhex arki karnaa designkiisa idan dunida tan imaa inaad tidhaahdo by chance bay ku timi
iyo inaad tidhahda ilaah khaaliq oo abuuray baa jira, waa labada midoon. waxa ay tilmaamaysaa orderku inaanu caws ka dhalanin ee inuu u dhasho oo qura inuu design jiro. waa argumentkii labaad. waxaa hadhay 3-4 argument oo kale, laakiin waxaan isku dayayaa inay haddana nasataan bacda almaqrib hadday idiin suurtagaltay. wixii joogaya wixii iska tegaya waa iska tegi karaan. bacda almaqrib inta kaleo dhanna waan israacinayaa, hal muxaadaraan iskaga dhigaya insha allahu tacala. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.